maxay tahay arrinta ay heesta dhexdeeda ku sameeyeen Shahrukh Khan iyo Deepika ee carada weyn dhalisay maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada ee Hindiya iyo qaybo kale oo ka mid ah dunida looga dhaliilayay muuqaal hees ah oo ay ka wada jiraan xidigaha Bollywood-ka ee Shahrukh Khan iyo Deepika. heestan oo ka mid ah filimka Pathaan ee la filayo inuu soo baxo sanadka cusub ayaa si weyn loogu faafiyay internetka iyadoo horeyna guud ahaan filimkan la cambaareeyay kadib markii la sii daayay xayeysiintiisa hordhaca. falcelinta dadkan ayaa u badan dhaleecayn ka dhan ah jilayaashan oo ka mid ah kuwa ugu caansan Hindiya iyo caalamkaba. maxaa loo qoonsaday filimka oo ku jira ama heesta loo qoonsaday? si guud waxaa looga soo horjeeday qisada filimkan oo ay dad badan u arkayeen mid gaf ku ah dhaqanka iyo diinta dadka Hinduuga ah ee aqlabiyadda ku leh bulshada waddanka Hindiya. laakiin xaaladdu waxay faraha ka sii baxday maalintii Isniinta isbuucan kadib markii la shaaciyay mid ka mid ah heesaha filimka oo ay ka dhex muuqdaan Khan iyo Deepika. atriishadan oo heesta ku sameynaysa qoobka ciyaar ayaa qayb ka mid ah muuqaalka lagu arkaya iyadoo xiran dharka ay dumarku hoos ka qaataan oo aysan wax kale la qabin. laakiin muranku kama taagna taas. waxa ay dad badan qoonsadeen midabka dharkaas oo ah hurdi, kaas oo ah mid lagu xushmeeyo arrimo la xiriira diinta Hinduuga. dadka ka falceliyay qaar waxay heestan ku tilmaameen mid ay ku jiraan waxyaabo anshax xumo ah, halka qaar kalena ay sheegeen inay tahay mid lagu aflagaadeynayo dadka haysta diinta Hinduuga. dadka sida carada leh uga hadlay mowduucan kuna dhawaaqay in aysan daawan doonin waxa ka mid ah bilyaneerka caanka ah Hindiya ee Mukesh Ambani. bartiisa Twitter-ka ayuu ku soo qoray taajirkan filimka Bollywood-ka ay ku jiraan atriishada Deepika iyo atooraha Shahrukh. dharka ay xiran tahay Deepika midabkoodu waa hurdi, magaca heestuna waa Besharam Rang, sidaas darteed ayaan isaga mamnuucay daawashada filimkan ayuu yiri. marka laga soo tago dadka ka carooday heesta waxaa kale oo jiray taageero u muujiyay dad badan oo taageero u muujiyay Deepika. Nemotai oo ka mid ah dadka caanka ka ah ee wax ku soo qora baraha bulshada ayaa barteeda Twitter-ka ku tiri gabdhaha gobolka Karnataka waxaa loo bartilmaameedsadaa in ay xijaab xiran yihiin, yacni ay muslim yihiin. Deepika waxay wajahaysaa eedayn ku saabsan in ay xiran tahay dhar jidhkeeda laga arkayo. run ahaantii waxaa laga soo horjeedaa haweeney walba, yacni u dhalatay dalkaas. muxuu Shahrukh Khan ka yiri arrintan? xidiga Bollywood-ka oo u muuqday inuu saameeyay muranka hareeyay heestiisa iyo guud ahaan filimka uu soo wado ayaa dhankiisa dhaliilay qaabka wax loogu gudbiyo baraha bulshada. baraha bulshada inta badan waxaa lagu soo qaataa fikrad lagu cabiray meel gaar ah oo kaliya. waxa ay baraha bulshadu xadidayaan dabiicnimada bini'aadamka iyada oo diiradda saaraya qof shakhsi ahaan u hadlaya, ayuu yiri Shahrukh Khan. jilaaga ayaa sidoo kale sheegay in saameynta baraha bulshada lafteeda ay u baahan tahay in laga sameeyo wacyigelin. dadka qaar waxay baraha bulshada ku faafiyaan waxyaabo loo eegay si khaldan. baraha bulshada waxay isku darayaan fahamka guud. waa in filimada ay door ka qaataan sidii meesha looga saari lahaa saameynta khaldan ee ay nagu leeyihiin buu yiri baraha bulshada. filimka Pathaan oo uu hagay Sidrad Ann ayaa la filayaa inuu marka ugu horeysa soo baxo 25 bisha January ee sanadka 2023. jilayaasha hogaaminaya Shahrukh Khan iyo Deepika marka laga soo gudbo waxaa kale oo ka soo muuqan doona atoorayaal caan ah Bollywood-ka oo kala ah Salman Khan, Hrithik Roshan iyo John Abraham.